habeenkii wuxuu fikirtii halkan u fariistaa wuxuu dhigeystaa geeyadan jaraystiyo ilaa gaabi faraskii caruurtu iyada isjeclaatay laakiin marka dambe reerkuna ima wanaajin isaguna sheedaan baa ku qaato de waa tala daba dhiga maxaa dadkoo hurda ayuu soo gidaarada taagnaa meelaha istaagi jiray waxaasina waxay ahayd jacaylahay ninkan aad waxa lagu dhufanayo iyo waxa lagu sameeynay iyo waxa lagu qabanayo midnaba ogaba haddii aad maanta qaar ka daba jiraysidna ma ogeen xaalad aad u xunbaahaysanay marka dadku iga kala seexdaan baan inta daaqada yara tumo hooda ku oran jiray marka mar uu iga furi jirtay mar inta dumar jeclaada doqoyla habaabo sida aan dardaranahay iska daba wareegi daawade ma xasuusataa halka inoo joogtay qaybteena saddexaad haddaad ilowday aan ku xasuusiyo waxay inoo joogtay xamse oo gaadhigii inanta isjeclaayeen isagu jajabiyey isla markaasina la xidhay maxkamaddana la geeyey weliba inantii uu jeclaayay hoodo ay ka soo horjeesatay balse intaynaan u gudagelin sheekadaasi markan waxaan idin tusi doonaa sida dadyowga kala duwan ee xamse ay jaarka yihiin iyo sidoo kale dhalinyarada ay kubadda wada ciyaaraanba ay ula socdeen sheekadan xamse waxaana dadkaasi aan ugu horreysiin doonaa hooyada dhashay xamse iyo dhibaatadii ay ka mudatay inankan anigaa dhalay inanta yaru daba carinayna walaalkay baa dhalay dad iga fog ma yahayn qiso yaab lay u dhacday inantaa yari waxa la maxmeeytay oo iska daba cariri jiray habeenkii buu cariri jiray roortii buu cariri jiray galabtii buu cariri jiray markasta gaariga aan shidaalkan ku shubto si socdiyo soo socod 100 shilin bay ahayd markii dambena waa la xiray gaadhu jajabiyay 3 bilood buu ku xidhnaa saldhiga macallin Haaruun maxay haytay markii dambe maxkamadda la geeyay waa la xukumay 6 bilood baa la xukumay mar ayaa xamse waxa la geeyay cisbitaalka dadka dhimirka ka xanuunsan balse saqdhexe ayuu ka soo dhacay maadaama uu ahaa isagu nin caafimaad qaba waxa la geeyay saldhiga dadka waalan waa lagu xidhay 2 cisho ku xidhnaa haddana saqdhexe buu sidii dadka waalan wuxuu ka dhacay dusha saqdi dhixu wuxuu ugu yimid gurigan ku silsiladeeyay inan kale wuxuu ka galiyay halka xulmariidka midi maxay haytay mididii markuu halka ka galiyay ayaan isagana dhakhtarka ula cararay de qiso badan bay soo martay caruurtu iyada isjeclaatay laakiin marka dambe reerkuna ima wanaajin isaguna sheedaan baa ku qaato de waa tala daba dhiga daawadayaal halkan aynu taaganahay waa goobtii iyo bartii uu ka soo unkamay ama uu ka soo bilowday qisada jacayl ee dhex martay xamse iyo inanta uu jeclaaday ee lagu magacaabo hoodo qolkan idiin muuqda oo dhinaca bidixda xiga ayuu ahaa qolkii ay deganayd sida uu sheegay xamse hoodo halkaasi oo ay laadhuuda ku soo wada ciyaari jireen oo qolkan isku baranay hoodo uu jacaylkaygu ka bilaabmay wax walbana meel bay ka bilaabmaan qolkan qol ani maanta taariikh aad iyo aad u weyn igu leeyahay halkaasan laadhu ku wada ciyaari jirnay halkaas jacaylkaygu ka bilaabmay marka waa qol aan wallahi ilaahu karin madadamiya soor kama dhunto bahala taladuna dambeyga dhaafaysa cabdirasaaq oo goran MMTV ku soo dhawow waxa tahay xamse ayaad jaartiin bal maxaad kala socotay sheekada iyo qisada jacayl ee xamse yare bismillaahir rahmaanir rahiim kolaba intii aan nolosheeda jiray waa qisadii kaliya ee aan live-ka aan u arkay xamse runtii muddo badan baan jaarahayn xaaladiisana aniga waalidkiisba runtii aad baan arrinkan uga ogeyn si khaas ahaanba anigu de maadaama uu nin dhalinyaro ahaa waxaan xariga loo geystay iyo dhibaatada loo geystay iyo jirgdilka loo geystay iyo joogsan la'aanta uu joogsan lahayo mar kastaba uu socday meeshuu qofku jeclaa ninbatu calmadii meeshuu dee uu jeclaaba uu mar walba ku cararayaan baawur baan ku xaysano ka daba tegaynay waanu soo qaadnaa gurigaanu keennaa dee waalidkiina aanu caawino xaq baanu deris baanu hayn magaranaysaa markaan gurigii keenno
kabacdi markuu gurigii dee uu yidhaahdo waan joogsanaya muddo yar joogo ayuu mowqifkiisa iyo taladiisa bis bedelaysaa waxay noqonaysaa inuu markiiba cararo meeshii dee uu tago marka orod buu soo ku tagay meesha walka wax yar uu joogaba dee reerku waa la waayey anugu gaari baan watay waxay ugu kalifaysay inaan markiiba inta qaado reerkii intaan qaadno ka daba tagno sidii inantii reerkoogii familigooga aan dhibaato u geysan waayo qofkii bilaadanka markuu gurigii hor istaago isaguna jacayl baa wada dhibaata haddee haysataa aan cidna dareemayn marka dee taasina waxay noqotay runtii arrin aad aanu la yaabno si khaasan baan anigu ugula hadlay waxaan ku yidhi xamso maxaa dhacay saaxiib jacaylku waxa weeyaan adduunku wuu ku dhacaa dad cid walba wuu ku soo maray laakiin de anigu maan arag jacaylka noocan oo kale wato taadu waa waali oo kale maraysa xaalad meel serious bay maraysa dee waxa weeyaan qofku inuu waxaaga adkaysatid baa qurux badan marka niyo xamse waxaad moodaa inuu ka tambadiyey ka tambadiyey waayo nin maamaha Soomaali waxay ahayd nin meel oo caday meel ka madow waxa qofka horta jacaylka lagu sheegana uu dhibaato badan yahay oo waakii wuxuu qaalin sida qaalin ku tubid dhalinyaro maraaco kala dabada meelahay dhakhtarka la geeyay ninkii dhaawac weyn qabay idinkuna way ugu dheelaysaa nabacda baarude cilmi barid baa saar lahaa wuxuu yiri maxaa hona cabday maxaan kaaga gooy waayay wuxuu kaloo marka ninkan asbaabaha habeenkii waxa aan la yaabay anigu aan la yaabay aan u qaadan waayay asbaabaha habeenkii oo dhan habeenkii wuxuu fikirtii halkan u fariistaa wuxuu dhigaystaa geeyadan jaraystiyo ilaa gaabi faraskii waxaa de la yaabay ka mid ahayd mogtahay heesaa u dhigaysanayo waxaa ka mid ahaa boqolkii hubiiciil hagardaamiliso cimigii boqolkii jacaylkow nafteeda iyo ruuxda adaan ku habeeyey jacaylka noocaasoo mirana oo jacayla dee oo dhiigu saa habanayo marka runtii dee haddana waxaan u rajaynayaa insha allahu tacaala ama inuu tiisii calmaday uu helo ama inuu ilaahay ka bogsiyo insha allahu tacaala xamse bal dhibaatooyinkii u waaweynaa ee xamse uu ka maray ee aad goobjoog aad u ahayd intaad ka xasuusto bal nala wadaag waxaan goobjoog ahaa subaxdii baa reerka aabihii xiray jeelka saldhiga iftiin baa lagu xiray kabacdina 12 buu soo daayay marka sababta loo xidhay waxay inuu ka haro inantan uu agteeda soo istaagin oo dee waxa la leeyahay inantan uu iimaan baa la leeyahay anu tii aan goobjoog ka wahaa markii la soo daayay 12 markii hadib baa nin kale oo meesha uu deynad joogtay agteeda askari ah ayaa ninkii intuu qaatay garaacay gaari kula dhacay gaarigu ku dhuftay kabacdina uu qaadayo dana askar buugu yaro maqsanta jirtilay la xiray taas anigu familigu ii kaxaysteen oo aanu tagay saldhigii tagay anagoo familigii xalaqsiin oo leeyahay macna in ka sii loo jirtida isaguna uu leeyahay anigu waxba ima gaarin ninkan aad waxa lagu dhufanayo iyo waxa lagu sameeyo iyo waxa lagu qabanayo midna ma ogaba haddii aad maanta qaar ka daba jiraysid ma ogeen xaalad aad xun baa haysanayo intii aad joogtay jacayl noocan dad nooca soo kala dhex maro ma arag inanta maartay jacayl may bari maalintii anigu oday baan subaxdii waan baxay 6 habeenkiina way maadaay laakiin de mar halkan agtan joogo waan arkay laakiin de wuxuu walaal waska jacaylku waa iska dhib badan yahay saaxiibo waxaynu ka soo taariikhdii cilmi boodhar iyo qays iyo leelayo iyo cantar iyo cabla iyo dadkaas dulanta waa ku yilay waxana waa waxa la isku diiday dhibaato aan qofka bilaada isku qabsan si waxa la sheegay in la xiray oo mar xugun ku dhacay oo ilaaj la geeyay bal iyagu arrimaha xalitaanka waxa kaga daran halka inta wax lagu geystay familiga ugu geystay anu waxaan kan saan loo garaacay walaaladiisa inta qabteen say u garaacayeen ay kooma ku galiyeen sababta u weyn maxay ahayd dee inaan taas uu faraha uga qaado lahaa laakiin ka qaadi waa ka sidee haa nin meel cad meel ka madow marka xamse wallahi arrin sax aad xun baa soo maray waxa weeyaan xamse in yar baan kaaga daraya oo kale intaan kaaga daray waxa weeyaan كل هذا البرنامج كان إنت ملك استو أو شعيل واللي بيلا وقتين اليوم هذا كهالينه ملك استو أو شعيل لقاه هاللي حمس وتاجيه أنا قاعد أروح أنا هيا بوكيسي ودي مركز دي على عالك وكوري شنو مكرنسا مركزان يقبل أيرا كخري أدان كخريو وحكويري واحد سمانتي ركتي كوري رفرتيو runtii waxa taariikh qinafta raxadi qalbiga sidii raxmade runay aragaaga lagu riyaa
ridada caashiqa wadnay ruuxdo runtii arrinteedu way ribatay riyada rudareen kaledi waaye rafaada sida ku jiro rarane inkastoo la isku raacay rayi gudbee labadii sarabtaa ma kala raysatee soo roray markan ku raagsadee rafiiqa noloshaan ku laalay ahaaye rabbiyo degaa shaqdeena waa ninka xaaladaas iyo marxaladaas naftiisu u sheegtay marka ninka runtii waxaan anu dee aad ugu boolinaya loo qoro inay boqorkii jacaylka loogu magacaabo jeclaan lahaa aniga magacaygu waa qadan maxamed waxaan ahay jaarka xamse waxyaabo badanna ka ogaa qisadiisa maxaad kala socotay banala wadaag walaahi horta waxaan la socday inaan kaa soo dee labada habeenimo intuu iska baxo jacayl dartii meelaha wareega kawdhe oo wax halaaliyo dee wuxuu ka socday wax kale la kala garan laayahay maxaa ahaa dadkoo hurda ayuu soo gidaarada taagnaa meelaha istaagi jiray waxaasina waxay ahayd inta jacayl hayay isaga markaa waa kaas dhibaatooyinkii isaga iyo reerka labadaba soo gaadhay maadaama jaarkooda ugu dhawaa tahay maxaad iyo kala socotay wallaahi dhibaato badan baa soo gaadhay xataa hooyadii waxyaabo badan bay bixisay oo isaga dartii khasaaraha dhinaca ka yimiday uu ahaa dee gabadh maxay ahayd dee markii hore u carab laalaadisay oo markii dambena dee kaga baxday ayay ahayd marka khasaarooyin badan horta way soo gaadheen isaga iyo reerkoodaba xukunaa ku dhacay baa la sheegay haa waa la xidhay ilaaj baa la geeyey haa waa la xidhay waan ogaa waan taagna xadir baanu ahaa erash baa la geeyey waa la xidhay macni waaliyo kala laga soo qaaday to horta qofka hadduu jacayl ku dhacana kulli waa sidii waaliyo kalaba ma garatay oo erash baa la geeyey waana la xidhay xataa iyada xidhay ma garatay oo maxaa hayday waxay ku xidhay gaariyaashii dhibaatadii u geystay ayay ku xidhay sidoo xamse sheegay inantu marba guriga la deganayay haa jacaylkooda halkaas uga bilaabmay صح maadaama jeerti xaq ku jeclaaday bay bahayd ba halka waan taagnaa inanta ma iskaranaysaa dama inanta isma garan laakiin inanta isaga wax isku dhinacaas dee wax iskaga haayeen oo inanta halkan ay batimiday ay la joogtay kabacdi jacaylkiisu halka ka bilaabmay bay bahayd ba oo halku ka jeclaaday bahayd bal xaafadda iyo dadka jaarku sidii ula socdeen sheekada iyo wallahi billahi sida anunka la socdo ayaguna ka badan way ula socdeen inkastoo anigu ka yara dheeraadna ay dadka iga dhow ay aad u maxay ahayd u ogaayeen ma fahamtay marka waa ka wallahi qisas xun baa soo martay wali ma aragtay jacayl noocan oo kale wallahi maan arag intaan soo taagnaa wali jacayl xamse ku dhacay jacayl lamida ma arag waayo jacayl aad xun bal idinka sidee idila muuqataa in sheekadan xamse qisada ay dhibaatooyinka badan soo mareen in la duubo oo la weeleeyo oo sidee wallahi horta aad baan ugu faraxsanay markii la igu waa la duubaya aad baan u farxay waayo qisadiisa jacaylka in la duubo iyo in bulshada ka qayb gashaba waan jeclaa garatay horena waan ugu taami jiray in la duubo laakiin idinkaaba naga soo horeeyo duubay maanta alxamdulillah waxaan doonayaa qisadiisu inay meel dheer gaadho oo khasaarihii ninka ku dhacay iyo wixii dee la soo kulmay oo dhanba maxaa ahayd laga warhayo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waan salaamayaa xaafadda oo dhan dhammaantood qisadan in badan baan uga soo taagnaa anigu waxaan ahay askari ka tirsan ciidanka qaranka oo xaafaddana degan in badan baanaan maxay tole xarigiisii ka qayb qaatay mar maxay tole lagu xidho saldhigga nayuu hargeysa mar macalin haaruun lagu xidho mar maxay tahay saldhigga dhexe lagu xidho mar maxay toolay lagu xidho iftin intaba goobjoog baan u ahaa waxaan kala goobjoog u ahaa maxay toolay in taraafiga lagu xidhay inaan ka yar maxay toolay taraafiga geeyeen qaybta waalida dhibaatada ugu badan ee uu geysanayay waxay salka ku haysay inaan qiso jacayl ayay ahayd bacdayn ugu cararaa waan soo qabanaa uu cararaa uu soo qabanaa reeruhu shiidaa jabiyaa gurigii inantu ku noolayd dhibaato fara badan baa inanka yar soo gaadhay magacaygu xamse cabdi xuseen waxaan la saaxiibahay wiilkan xamse la dhaho ee jacaylku ku dhacay ninkan arrimihiisa markii hore maan ogeyn markuu dhalintii aan kubadda wada ciyaari jirnay buu ka mid ahaa markuu dhalintii ka dhex baxay ayaan dareenay inaanu ninkani joogin oo aanu xaafaddaba joogin marka anigu si gaaraan isku waraysanay aniyo isagu markaa waxaan ku idhi niyo maxaa kugu dhacay wuxuu ii sheegay xaaladuhu soo maray wuxuu dhibaato soo maray wuxuu soo arkay waxaasoo dhan way iga warramay mar waxaa jirtay waxaa dhacday mar hooyadii maalin anigoo asxaab fara badanoo meel fadhfadhna intay noo timaaday ay tiri inankiiba iga xanuunsanaya kaale qur-aan igu soo akhriya dee maan dareensanayno haddaan garanno in xanuun jismiyan unbaan moodanay inuu ku dhacay ninkii aduu jirhkiisu isbedelay dadkii uu ka dhex baxay kubadduuna la ciyaari jiray namuu soo dhex geli jirin
nin furfuran buu haayo boqolkiiba boqol hadal badan oo kaa qoslinaya markaad aragto jawigiisu isbedelay aduu hadalkii badnaa uu yareeyey waxaa dhacday inuu xaafadii ka dhex baxo inuu keligii go'o mar waxaa jirtay inanta ay isjeclaayeen uu raadiyey oo darteed inankooda weyn u dilay mid ka weyn oo axmed la dhaha oo madaxa wax kaga dhuftay oo kooma galay oo koomadii isagoo ku jira inanta isjeclaayeen soo booqatay aduu dee waxaasoo dhan inay dartii u maray inantuna inay ilmaatiyiin uu ii sheego haa way dareensanayd inantu boqolkiiba boqol waxaasoo dhibaato inuu isaga u maray inanta ma garanayo laakiinse waxaan arkay maalinta xanuunsanay aan inanta ay soo booqatay aan arkay aduu markaa uu soo miiraabay waxaa dhacday dad fara badan uu kala gartay laakiinse markii hore waxba ma kala garanay waxaa dhacday inuu dad badan garan waayey laakiinse markii dambe uu miirkiisa soo noqday oo caadi noqday be laakiinse jawigiisii waxyaabo fara badan baa iska bedelay inuu qofku markuu jacayl ku dhaco inuu sidan oo kale noqon karo dee maan moodin anugu laftarkaygu ahay murugada jacayl ma hadho maankayga ku yeeshay meel halise ahay murugada jacayl ma hadhe maankayga ku yeeshay meel haliso ahay murugada jacayl ma hadho واو واسبوع كيسو في عيسى صاحبي wadkeeshi soomaa ما شاء الله صح ما عاد كش بسيط waxaan ku shubtay xidhmo furan $10 baad ku shuban kartaa 5 baad ku shuban kartaa 15 baad ku shuban kartaa 20 baad ku shuban kartaa